maxaan sheegay maxaa la yiraahdaa cilmi nafsi qeexitaan ahaan qeexitaano dhowr baynu arkaynaa mid kastana meel baynu ku salin doonaa hadduu aan leeyahay waa scientific study of behavior and mind waa barashada cilmiyeysan that is a scientific study behavior and mind shaqada maskaxdu ay qabanayso iyo dabeecadu bini'aadanka okay sida aynu hore u tilmaanay waxaynu insaanku wuxuu yaqaanaa waxa la yiraahdo dabeecad bini'aadanku wuxuu yaqaanaa dabeecad marka aynu aragno arday irdaa ka soo galaya iyo ardayda irdaa ka soo galaysa markaynu aragno waxaynu odoroseena aynu cabiri karnaa dabeecadooda waxa ay tahay qofka wajigiisa facial expressionka iyadoo la eegaya sida uu yahay muuqaalka wajigiisa sida ay tahay laafidiisa iyo sida uu yahay dhaqankiisa iyadoo eegayno waxaynu leenahay hebelna waa xanaaqsan yahay hebelna waa caadi ya inuu sheegaya inuu caadi yahay dabeecadiisa inuu sheegaysa qofka markuu oynayo ka waran hadii lagu weydiiyo maxaad leedahay hebel waa oynaya yaa ku sheegay inuu oynaya adigu waxa taqaanaa dabeecada oyna sida aad u taqaanaa qofka markuu oynaya dabeecadaha lagu yaqaan ayuu insaanku wuxuu u yaqaanaa dabeecad kasta sida loo micnayo cilmi nafsiyahanada toolka ay isticmaalaan waa maxay waa behavior interpretations inay turjumaan dabeecad kasta oo ay arkaan inaan ku sameeyaan had iyo goor qofka insaanka laba tusaale yar markayna soo qaadano adigoo oo laamiga maraya hadii ka warna ay ka hor yimaadaan ilmo 4 jir ah oo isbaaro ku dhigtaan adiga ninkaaga deefiiraha balaaran oo 90 kiilo ah ilmo 4 jir ah oo saddex markii iradu laamiga ku istaagan ka waran dabcan waxaad cabiraysaa marka aad ogtahay inay waxba ka qaadeen yaa maxaa ku tusay sid ku ogaatay qofkii insaanka wuxuu og yahay awood gudihiisa ku jirta ee la yiraahdo internal pressure qofku wuxuu isku miisaamaya marka internal pressure ka gudihiisa ku jiro ee external pressure iyo wax dibadda kaga yimaade deewa ilmo yar wad ka dul tilaabsan waxba u arkamaysid laakiin marka 20 jir rag fara badan oo wada ciidana wada hubeysan oo wada magaratay wada seefo wata markii radu ku soo istaagan ka waran waad argagaxaysaa you will give up why you will give up maxaad isku dhibtay sababtu maxay tahay waayo automatic waxaad ogtahay your internal pressure how is much than for others waxa taqaan awood gudaheeda ku jirta iyo tan dibadda sida la isugu dheeli tiro waxay ka dhigan tahay cilmi nafsiyahanada had igor waxyaabaha ay darsaan waxa kamid ah micnaynta dabeecadaha yes sida loo micneeyo dabeecadu waxa la yiraahdo cilmi nafsiyahanadu waa toolka isticmaalaan anagu waxaynu naqaanaa sida loo micneeyo dabeecadu maadaama aynu nahay cilmi nafsiyahanadu okay maadada marka aan qeexayo waxaan ka bilaabay scientific study waxaynu u baahanahay marka inaynu si qoto dheer u ogaano inaynu si qoto dheer u darasno maxaa la yiraahdaa scientific study af Soomaali maxaan ku sheegay yes waa barashada habka cilmiyeysan waa barashada habka cilmiyeysan kaabaynu ku tilmaanay waxaan ku weydiiyay marka adigu shay qofka cilmi nafsiyahanka ah ama shay kasto kamid ah waxyaabaha inagu xeeran marka aan u baranayo shaygaana si cilmiyeysan sifaadka lagu baranayo maxay tahay markaas waxaan kala jeedaa xisaab ama qaacido marka aan marayo qaacidadaasi maxay tahay wax cilmiyeysan waay waxaan aqaan wadiiqada aan marayo iyo processka la iga rabo iyo maxsuulka ugu dambeeya maxaan marayaa marka channel cad oo cilmiyeysan oo hore loo odorsay aniga hadda ma alifaya you see aniga hadda alifi maayo fine mobile ayaad isticmaashaa mobilka maxaa la socdo waxa la socda book yar oo ku tilmaamaya sida mobilkaaga uu u shaqeeyo warkaasi maxaan kala jeedaa mobilkani warka theory-ga ah ee la socda iyo behavior-ka ama isticmaalka ficilka ka abuurmaya maxsuulku waa isku mid wuxuu ku sheegayaa sida loo dumiyo sida loo dar sida loo cilad bixiyo waa dad aqrisataan ayuu ku sheegayaa macallin ma baahnidba asab ku hagaya hagaha markaad isticmaasho hawshi habkii u socotay ayaad baranaysaa waxaan kala jeedaa marka waa wax cilmiyeysan mobile hadda lama hadda dunidu maysan ogaan waxay inta aan la sameyn waa lagu fikiray waa la odorsay waa la si cilmiyeysan baa loo darsay kadib la soo saaray inta aan ficil ahaan loo soo saarina interpretation fara badan ayuu soo maray waxaan kala jeedaa marka mobilkaas arkaysaa wuxuu soo maray hab cilmiyeysan ee la yiraahdo scientific study waxaad ogaataa marka shay kasta
markaynu rabno inaynu u darsno si cilmiyeysan maxaa looga baahan yahay shayga cilmiyeysan sifaadka lagu garto muxuu yahay si kala markaan u dhigo shayga cilmiyeysan sifaad ayaa lagu gartaa sifaadkiisu muxuu yahay marka aad adigu leedahay shaygani waa shay cilmiyeysan shaygani ma ahan shay cilmiyeysan elementiska adigu aad eegayso maxay yihiin qof kasta waan kaga baahanay inuu ii sheego af Soomaali baan ku sheegayaa buugaaga qalankaaga la soo bax af Soomaaligaada qor Englishkana dee waad u jeedaaba fine scientific study shay cilmiyeysan baa la yiraahdaa shayga cilmiyeysan sifaadka lagu garto maxaa ka mid ah haye qoro number 1 theoretical frameworks saddex sifa ayaa lagu gartaa shayga scientific study-ga fine kan koowaad maxaa la yiraahdaa waa theoretical frameworks the other one testable hypothesis the third one empirical evidence aan macnayno maxaa la yiraahdaa shay kasta oo cilmiyeysan waxaad ogaataa waxa uu leeyahay aragtidaasoon hal iyo laba ahayn waa aragtiyo la isu geeyay fine shayga cilmiyeysan sifaha lagu garto waxaynu leenahay waa theoretical frameworks wuxuu leeyahay aragtiyo isku dhisan fine muxuu leeyahay aragtiyo isku dhisan ayuu leeyahay oo aanan iskhilaafin ee isdhamaystiraya qodobka labaad waxaynu sheegnay wuxuu leeyahay testable hypothesis shayga cilmiyeysan waxba uu ku tilmaamaya waxa uu ku tilmaamayana waa wax dhadhamaya waa testable hypothesis mala awaal dhadhamaya weeyaan maxay ka dhigan tahay haddaan ku mala awaalo oo wax aan kuu sheego isla markii waxaad kala garan kartaa waxaana ma yihiin wax reachable ah ma yihiin wax logic ah mise ma ahan wax kastoo logiga waa testable hypothesis tusaale waxa ka mid ah haddaan ku iraahdo maanta jaamacadda campaign baa la qaadaya waa la wada guduudin rinji baa la isticmaalay darbiyada aan ka dhigana guduud soo wax la sameyn kara ma ahan wax la sameyn karo weeyaan wax weyn ma ahan laakiin haddaan ku iraahdo badda rinjiyana ka waran illogic wax suurtagal ma ahan mala awaalka ku tilmaamaya badda in midabka laga bedelo wax la gaari kara ma ahan hypothesis baa la yiraahdaa waa mala awaalka cilmiga uu tilmaamayo waa testable marka waa wax logic ah waa wax la gaari karo waa wax la sameyn karaya sifaha lagu gartaa shayga cilmiyeysan waa maxay wuxuu tilmaamayo waa wax suurtagal ah si kale markaan u dhigo wax suurtagal ah maxaa la yiraahdaa waa testable hypothesis wuxuu leeyahay mala awaal dhadhamaya suurtagal ah logic ah reachable ah fine realistic ah measurable ah ayuu leeyahay kiisa saddexaad maxaa la yiraahdaa empirical evidence sida loo isticmaalo mobilka inta aan la soo saarin mobilka product ahaan aan loo soo saarin waa la tijaabiyaba shay kasto cilmiyeysan wuxuu soo maray tijaabo cadayna oo lagu qancay maxaa la yiraahdaa empirical evidence wuxuu leeyahay cadaymo la tijaabiyay muxuu leeyahay cadaymo la tijaabiyay waxaan ka rabaa marka inaad igu soo celiso adigoo qof inuu igu soo ma garatay igu sheegtaan scientific study maxaa la yiraahdaa that's the question fine scientific study wadii sheegi doontaan hala dhageysta scientific study waxaa la yiraahdaa shay cilmiyeysan shay kasto cilmiyeysan saddex sifo leeyahay saddex sifo maxaa la yiraahdaa markan af Soomaaliyeyno waxaa la yiraahdaa shayga cilmiyeysan wuxuu leeyahay mala aragtiyo isku dhisan qodobkiisa koowaad mala awaal dhadhamaya qodobkiisa labaad cadaymo la tijaabiyay qodobkiisa saddexaad fine in English maxaa la yiraahdaa waa theoretical frameworks testable hypothesis and the empirical evidence halka igala soo